nimanka argagixisada inay jabeen waxaa cadaynayso in xalay wasiirkii wasaaradda gaashaandhigga iyo taliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee furunta idinkula hoyanayaan ayagana ay talaab qaadi lahayn hawshii aa soo wadeen muddada dheer ilaa haddana aa u taagan tihiin waxay cadaynaysaa in xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka go'an tahay ballantii ay u qaadeen ummadda Soomaaliyeed iyo dhaartii ay u dhaarteen inay shacabkan Soomaaliyeed badbaadiyaan nimanka argagixisada ah ee la soo qaldayna dabcan madaxda qaranka oo madaxweynaha jamhuuriyadda ugu horeeyana cafiskii ugu dambeeya loo fidiyay waa ninka ilaahay caqli siin rabo ee ka soo bixi rabo waa maalmaha kooban ee na soo aadan kii caqliga leh ee soo hanuuna ee ka toobad keena nimankaas argagixisada falalka guracan ee ummadan ku dhibaateynayaan fursad u haystaa warbixintiina waxaa dhiibay taliyihiina qaybta Cornel Saahid urur qiimo badan taariikhda xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan taariikhda ummadda Soomaaliyeedna macna badan u leh shaqooyin fara badan soo qabtay xuduud ka soo shaqeeyay kadib intaasoo goobood nimanka argagixisada ee al-shabaab kula soo dagaalamay markastana guul u joog ahaa inaad tihiin dabcan taliyihiina ka warbixiyay waa idinkaga mahadcelinaynaa shaqada qaranka u haysaan waana idinkugu hambalyeelnaynaa guusha iyo sida mar waliba ay idinkaga go'an tahay gudashada waajibaadka qaran waxaan kaloo rabaa inaan idinkaga hambalyeeyo idinkagana mahadceliyo guushii taariikhiga ahayd ee aa ka soo hoyday degmada Ceeldheer maalmo ka hor degmada Ceeldheer aan joognay iyadoo aad iyo aad leedinkugu ammaanayo waa ogtiin maalinkaas taariikha dhigteen waa ogtihiin maalmahaas fiidiyowyadii aad duubteen inay taariikhda galeen idinkoo isku kalsoon nimanka argagixisadana ay madaxa idin soo gelin layihiin ee dagaalamayo dhagartoodii iyo gaarigii ninkii naftihaligaha ahaa intuusan xiriirada soo gaarin qarxinayo taariikh qurux badan ahayd guushaasna waa idinkaga hambalyeynaa waana idinkaga mahadcelinaynaa sida isugu kalsoon tihiin hawshii aa soo wadeen muddada dheer ilaa haddana aa u taagan tihiin waxay cadaynaysaa in xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka go'an tahay ballantii ay u qaadeen ummadda Soomaaliyeed iyo dhaartii ay u dhaarteen inay shacabkan Soomaaliyeed badbaadiyaan 3 sano la soo dhaafay dagaalkii argagixisada kula jirteen maanta argagixisada waxay maraysaa in ay talaab qaadi laadahay in maalmaheedii ugu dambeeyay ee taariikhda ay ku jiraan taariikh xun ummadan Soomaaliyeed soo martay oo soo gabagaboweyso in maalmihii ugu dambeeyay ay marayaan haddii dadaalkii aa muujiseen iyo jihaadkii aa soo gasheen haddaanan la geli lahaynin maanta taariikh dheeraato nimanka argagixisada ay lahaadaan iyo rajo aad u yar ay ummadda Soomaaliyeed lahaadaan la joogi lahaa maanta laakiin waxaan joognaa in ummadda Soomaaliyeedna rajo aad u fiican ay ka qabto in xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed nimanka argagixisada ay soo afjari doonaan ayagana ay dabcan ay dareensan yihiin waliba inay maalmihii ugu dambeysay ay ku jiraan aan rajaynayna insha Allah waqti aanan dheereenin in taariikh xun ummadan Soomaaliyeed soo marto laga sheekeeyo ay noqon doonaan hadduu Ilaahay calankan cawaale dadaa u dhintay u soo dhaawacmay ummad Soomaaliyeed la yaqaano baasaboor leh magac leh adduunyada meel kasta maraysaanay Soomaan taariikhdaas oo kala looga sheekeen doonaa nimanka argagixisada guulihii aa gaarteenana keenta taas ama soo dadajisay haddana waxaan rajaynaynaa insha Allah dhiigga cusub ee xoogga dalka Soomaaliyeed ku soo biiray iyo dadaaladiina meesha ka sii wadaan ilaa hadda aad difaaca u joogtaan ribaadka aa u maraysaan in ay ku soo afjarmi doonto nimanka argagixisada inay jabeen waxaa cadaynayso in xalay wasiirkii wasaaradda gaashaandhigga iyo taliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee furunta idinkula hoyanayaan ayagana ay talaab qaadi lahayn aad iyo aad u mahadsantihiin geesinimadiina aad iyo aad u mahadsantihiin dhiiranaantiina maanta inaan idin dhiirigelino idin soo hor istaagno idinkugu hambalyeeno guulihii aa gaarteen idinku dhiirigelino shaqada qaranka aa u haysaan maalmaha wacan ay soo socdana halkan Ilaahay ugu alla barino waa maanta waxa idin hor taagannahay nimanka argagixisada ah ee la soo qaldayna dabcan madaxda qaranka oo madaxweynaha jamhuuriyadda ugu horeeyana cafiskii ugu dambeeya loo fidiyay waa ninka Ilaahay caqli siin rabo
ee ka soo bixi rabo waay maalmaha kooban ee na soo aadan kii caqliga leh ee soo hanuuna ee ka toobad keena nimankaas argagixisada falalka guracan ee ummadan ku dhibaateynayaan fursad u haystaa haddii maalmahaas dhamaatana dabcan shaqadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan gorgor lagu yaqaanay waa shaqadana sugaysa duu Ilaahay insha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin guuliga go'nimo idin rajeynaa Allah idin sharfo Allah idin guuleeyo ummadda Soomaaliyeedna barwaaqada iyo baraaraha ay ku naaloonayso ee rajada badan ee dhow ay ka qabtana Allah na gaarsiiyo dhamaanteen annagoo isku sheekeynayno kana sheekeynayno maalmihii iyo taariikhdii xumeed ee nimankan aan la soo marnay iyo ummadan ay la soo mareen Allah na wada gaarsiiyo meelahan ka sii qurux badanna insha Allah inaan ku kulanna rajeynaa aduu Ilaahay idmo aad iyo aad u mahadsantihiin guuliga go'nimo idin rajeynaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.